السلام عليكم dhalinyaro soo dhawaada waa macalin maxamuud casharkan wuxuu ka mid yahay casharada ereyda ahaa aynu ka qaadanayna college-ka cilmi academy halkan waxaynu ku baran doonaa 10 erey haatan waxaa sabuurada noo saaran 7 laakiin saddexda kale dib baynu kaga dari doonaa insha Allah okay ereyga koowaad waa satnav simply waxaa laga soo gaabiyey satellite oo SAT laga soo gaabiyey satellite iyo nav oo laga soo gaabiyey navigation satellite navigation waa marka waa system ay isticmaalaan baabuurada si GPS koodii meesha ay joogaan u hago tusaale Nairobi waa joogtaa Nairobi saa ma kala taqaanid haddana waxaad rabtaa magaalada inaad ku dhex wareegtid ama taksiilaadka magaalada yani taksi ku dhexood so waxaad u baahan tahay GPS sax GPS kaas gawaarida isticmaalaan marka waxaa la yiraahdaa satnav waa satellite navigation system I hope it makes sense ereyga labaad savory waxaa la yiraahdaa cunada markay basbaas badan tahay ama cusbo ay leedahay for example qof wuxuu leeyahay I prefer savory food waxaan jeclahay cunada basbaaska leh savory yani waxa waa spicy food cunada basbaaska leh ama cunada kulul spicy ereyga labaad waa scented waa wax udug wanaagsan leh for example shumaca luqad waxaa la yiraahdaa candle shumaca caadiga la shito candle for example haddaan ku dhaho the candle is scented يعني shumaca kan wuxuu leeyahay udug wuu carfaya shumacyo waxaa jira qaarkood shumaca waxaa la yiraahdaa balls okay what is that okay yes qaabkaas uu eegaya shumaca qaarkood waxay leeyihiin yani waxaa moodaa fragrance iyo caraf waxaan lagu sameeyay markii uu shidan yahay marka guriga dhamaan caraf buu noqonaya scented candle baa la yiraahdaa yes ereyga afraad waa scotch tape waa koolada caadiga taqaan koolada yani bacda ka samaysan ee lacagaha lagu dhajiyo scotch tape waa noocaas waa mid yar oo khafiif ah sare lacagti 10 shilin baa wadatay dhaxday ka kala go'do soo koolada soo qabanaysa labada dhinac isaga dhajin taas ayaa la yiraahdaa scotch tape ereyga shanaad nagu cusba dhowr mar buu naga soo baxay waa scream waa qaylo shout ay isku macno yihiin shout why are you screaming maxaa la qaylinaysaa ama why are you shouting yes shout iyo scream waa isku macno for example don't scream ha qaylin don't shout ama screech iyadana qayladaas ay ka agdhowdo oo qofkii inuu cod dheer uu sameeyo tusaale gaariga markuu istaaga qaduu cod dheer uu sameeyo screech waa the car screeched to stop ayaa leedahay yes screech scuba waa agabka ay xirtaan dadka markay galayaan badda yes qofka yani naaquusaha ah badda markuu ku dhex boodaayo bahal yar oo sanka iyo ahaan yar oo oxygen oo dhabar ku wato qalabkaas waxaa la yiraahdaa scuba yani waa driving gear uu qofka isticmaalo diving gear waa agabka uu qofka isticmaalo markuu badda rabo inuu gudaha u galo yes waa tirtiraya ereyga sideedaad aynu cashkan ku baranayno waa sculpture dhalinyaro waxaa jira wax la yiraahdo sculpture tusaale hadda muqdisho waxaa ku dhagan taalada sayidka sayid Abdullah Xasan Ilaahay naxariisto xamarna waxaa ku dhagan ama muqdisho may jigjiga ku taala taas muqdisho waxaa ku dhagan xawataako waa umalayn iyo Axmed Gurey taalooyinkaas waxaa la yiraahdaa sculpture ama statue yes qofka taalooyinkaas hagaajiya marka waxaa la yiraahdaa sculpture yani waa taalo iyo statue sanam laga hagaajinayo qof taariikhda soo maray wax cusubna wadanka soo kordhiyay ama xurimaha usoo dagaalamay dhamaantood yes ereyga sagaalaad waa shears waa maqaska yani la isticmaalo marka idaha dhogorta laga gurayo yes waa scissors iyadana waa maqaska caadiga waxaa la yiraahdaa scissor waa maqaska caadigeenu naqaan yes midka idaha loo isticmaalo marka dhogorta laga gurayo ama dharka la jaraayo ama geedka yani la jaraayo when you are trimming the plant geedka for example ubax ka jaraysa waxaad isticmaalaysaa shears I hope it makes sense ereyga tobanaad u dambeeyo waa shade waxaa la yiraahdaa yani tusaale haddii aad hadda maska camal markuu muddo joogo dhogortu iska ridaa sax it shades its skin maqaarkiisa ka dhaco yes ama for example geedka caleenti baa ka daadata markii la gaaray yani folk marka sheetaas geedka markii caleenti ka daadanayso ama timaha ka daadanayaan ama maqaarka
يعني حيوانكان iskaga daadinayo shed waa la yiraahdaa shed waxaa kaloo loo isticmaalaa gurigaaga meesha waxaad ku kaysatid the storage room storage room waxaa la yiraahdaa qolka yani aad alaabaha dhigatid yes waxbaad ku kaydsataa storage room ayaa la yiraahdaa waxaa kaloo la yiraahdaa shed erey kale waxaa jira snacks aan ku jirin oo ahaa shed kan kale waa hoos shed hoos yani geedka hooskiis ama harkiis wax soo xilay kivuli ay dhahan kivuli waa shed يعني get carkies. Okay, I hope it makes sense. Actually, that's a good start. Until next time, stay safe.